burco waa caasimadda labaad ee Somaliland waxaana ay caan ku tahay xoolaha nool balse arrinta aan ka waramayno way ka duwan tahay taas burco waxay caan ku tahay ciyaaraha waxaana xasuuso iyo xilliyo kala duwan ay soo martay ilaa dawladdii Soomaaliya oo ay ciyaartoyda burco ka socda ahaayeen kuwa lagu majeerto ciyaar wanaag xamaasad iyo xiise gooniya kabtankii xulka gobolka Togdheer ee 1884 ayaa sharaxaya xilliga xulalkii ka soo qayb galay ciyaaraha Soomaaliya oo ay burco ka mid ahayd waxaana ka soo qayb galay 3 gobol oo waaweyn markaas gobolada waqooyi awdal Togdheer iyo waqooyi galbeed iyo gobolkii la oran jiray Sanaag iyo isaguna gobolkii la oran jiray bari markaa wixii ka dambeeyay sanadkaasi waanu halkan ku harnay ciyaartii u dambeysay halkan lagu soo xiriyay tartanka wareegiisa horena waxay dhamatay gobolada waqooyi galbeed iyo Togdheer gabagabadii ciyaartuna waxay ku dhamaatay runtii anagoo laba chance lahayn badis iyo barbadhac laakiin nasiibku wuxuu siiyay oo u saamaxay gobolka waqooyi galbeed hal iyo sanadkaasi inay naga badso xilligii dawladdii Soomaaliya waxa la ciyaari jiray ciyaaro kala duwan sida kubadda cagta kubadda gacanta kubadda miiska kuwa orodada iyo dabaasha intaasba burco waa ay ka qayb gali jirtay sida uu sheegay ciyaartoy Ibrahim Daahir Jaamac Cateeye taariikh ahaan haddaan yara taabto guud ahaan horta ciyaaraha gobolada Soomaaliya la oran jiray qaybo badan baa la ciyaari jiray kubadda cagta la ciyaari jiray kubadaha gacanta la ciyaari jiray kubadda miiska orodada boodooyinka nooc walba dabaasha intaas oo nooc burco ay ka qayb gali jirtay mid aan ka qayb gali jirin ma jirin guulka meel walba ha gaadhay ciyaartan waa mid xiiso iyo xamaasad xambaarsan waxaana sanadkii 1972 ciyaar koob final ah isugu soo baxay burco iyo Kismaayo waxay ugu maqaala 72 inay burco iyo Kismaayo kubadda cagta isugu soo hareen final saddex jeer isku noqdeen sababtoo ah la isku celiyay waxay ahayd iyagoo ismar waayay laba kooxood oo taf oo adag ay ahaayeen markii dambana guusha waxay ku raacday martaxaadkii gobolkaasi Togdheer burco wuxuu lahaa ciyaartoy hufan ciyaartoy akhlaaq wacan ciyaartoy isjecel ciyaartoy yani gobolka yani magaciisu gubo burco oo ciyaaraha caan ku ahayd marka laga yimaado xilligii dawladdii Soomaaliya waxa ciyaaraha sanadkii 2002 laga bilaabay Somaliland kaalintii ayay burco ka gashay ciyaaraha laga bilaabay Somaliland tartankii ciyaaraha gobolada wuxuu noo bilaabay 2002 tartankii ciyaaraha gobolada 2002 markuu Somaliland ka bilaabay burco waxay gashay kaalinta labaad Hargeysa ka qaaday 6 gobol baa tartanka loo qaban jiray ma jirin gobolada dambe ee hadda lagu daray 14 bay noqdeen 6 gobol ee caadiga ahaa ee waqooyi galbeed oo Hargeysa Togdheer muxuu ahaayay Cerigabo oo Sanaaga Laascaanood oo Soola Saaxil Boorame intaas ciyaari jiray kaalinta labaad baynu nimid magaalada burco oo ciyaartoydoodu ciyaaraha caan ku ahaayeen muddo dheer kadib sanadkii 2020 tartankii ciyaaraha Somaliland ayay wareegii koobaad ku hadheen waxaana iscasilay isuduwihii ciyaaraha Kayse Yuusuf Cilmi maxaa hoos u riday ciyaarihii burco caanka ku ahayd isuduwaha cusub ee ciyaaraha burco loo magacaabay ayaa sharaxaya siduu u soo celin karo xeeladii iyo xifaaltankii ciyaaraha burco wuxuuna soo bandhigay qorshihiisa cusub salaam ya Soomaali Channel shaqaalihiisa su'aashaasi jawaabteedu waxay noqonaysaa horta marka hore Ilaahay baanu tala saaranay insha Allah taala mar labaadka waxaanu talada la yeelanaynaa dadkii khibrada ahaa ee ka shaqeyn jiray ee gobolkan soo ciyaari jiray ama soo hogaamin jiray ama soo tababari jiray baanu la yeelanaynaa iyo talooyinka la wadaagaynaa kadibna waxaanu samayn doonaa inaynu samayno tartamadii istawa jooga oo aan kala gool ahayn oo ay si joogtaa ciyaartoygu ay u ciyaaraan si ay u soo noqdaan ciyaarihii goboladu marka markii koowaadna Ilaahay baan tala saaranaynaa kulli xulkii gobolkii horena waa jira
wax badan oo lagu darayaana waa jira marka cidii loo arko inay gobolka matali karaan marka tartamada la qabto cidii loo arko gobolka inay matali karaan ciyaartooydu ay noqoto heer gobol ayuuma loo xuli doonaa insha Allah taala waxaana xuli doontaa wali wax xulo oo maanta aanu diyaarinay ma jirto cid xuli doontaana waa macalinka marka loo magacaabo iyo kaalihiisa iyo gudida ee wasaaradda iyo khubarada gobolka baa xuli doonta insha Allah taala ifafaalaha burco ee soo celinta ciyaarihii ay muddada dheer caanka ku ahayd ee cidina aanay loodin jirin ayaa hadda u eg mid isuduwaha cusubi dardargeliyey Shaybe Cumar Cismaan Somali Channel Burco.